hooyo Zaynab Cismaan Aadan waa hooyada dhashay Xamda Maxamed Cabdiraxmaan oo muddo sanad iyo badha la laayahay meel ay jaan iyo cidhib ay dhigtay. haddaba telefishinka Ariel ayaa ku booqday hooyo Zaynab Cismaan Aadan hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Cakaara. haddaba qoyska Xamda Maxamed Cabdiraxmaan ayaa telefishinka Ariel u sheegay in haweeneydaasi ee Xamda Maxamed Cabdiraxmaan ay lahayd reer isla markaasna ay qabtay xanuunka suuxdimaha. qoyska haweeneydaasi la laayahay ee Xamda Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Xamda gurigeedu amaba reerkeedu uu ku yaalay xaafadda Sheekh Nuur amaba kililka. hooyo Zaynab Cismaan Aadan markii aan ku booqday hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa waxaad wajigeeda ka arkaysay amaba aad ka dheehanaysay murugo iyo tiiraanyo. waraysigiina dhex marayna waxa uu dhacay sida tan. marka intaydii ayaa la waayay intaydii baa la waayay marka waxa weeyaan shidad iyo bad dhibitaantii waxa weeyaan marka dhibba qaba carus beelada waa la carubtay waa dhabaxday marka waxa soo caartay uur beelada magacaageedii waxa la yiraahdaa Zaynab Cismaan Aadan marka carruurta inanteedii wataa walabada waa carruur marka yadu dhibba qaama magacaygu waa Liima Maxamed Cabdiraxmaan waana inanta lalaay waana inantaadi Xamda Maxamed Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa waxaan lalaay muddo ilaa hal sano iyo bar gaaraysa maalinta naga tagtayna halkii markii noogu wardamaysay inay gurigeeda tagisaa noogu wardamaysay uur 6 biloodana way lahayd. xaafadda iyaduna waa Cakaara xaafadeeduna waxay ahayd kilalka magaceeduna Xamda Maxamed Cabdiraxmaan. waxaan ku baaqayaa cidii aragtay inay hooyadeedna way dhagalaada inay si fiican ugu soo hagaajiyaan. Kawsar Cismaan Aadan maxay toolay Kawsar Cismaan Aadan inanta habriyarteeda waan ahay muddo 6 bilood ayay maqnayd muddo imika 2 sanadood oo aan laanay raq meel ku maqan tahay dadweynaha waxaan ku codsanaynaa sharafta leh in meel noogu soo hagaajiyo lambarada aan qaybinay maxay toolay muddo 6 bilood way laay ayay lahayd gurigeeda kililka ayuu ahaa markaas hooyadeed oo dhagala duruufta koodantay waa yeel ah qof ilmihiisa maqayna la iska garanayo mar waxaan ku codsanaynaa dadweynaha in ilmahaas loo baadi doono lambaradaana lagu soo hagaajiyo in baan ka codsanaynaa. Maxamed Cabdiraxmaan oo aduu 6 bilood lahayd gurina lagu ogaa ruq iyo raaq meel ay ku maqan tahay aanan ka warhayn da'deedu 16 jir ilka sawirkeedana waa la faafiyay markaas inta sumar dadweynaha ka codsanayna. haddaba qoyskani waxa uu si naxariis leh ummadda islaamka iyo guud ahaan ummadda Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland ay ka codsanayaan cidii garanaysa amaba aragta haweeneydaasi la laayahay ee Xamda Maxamed Cabdiraxmaan in cidii aragta ay ku soo hagaajiyaan lambarada shaashada idinka muuqda. Aydaruus Maxamed Axmed Ariel TV Hargeysa.